عثمان وويل dhalinyaro oo kamid ah xufaadda qowlka eebe haddaba isagu inuu quraanka xifdiyo waxa uu sii dheer inuu isu ekeysiyo isla markaasina sameeyo codadka culimada kale ee ku nool caalamka waxaan ku dhashay gobol yaraada malka ogaas waxaan ku soo barbaaray Djibouti oo ka soo bartay xifdiga quraanka oo xifdiga aan ka soo qaatay quraanka kariimka ah waxa awal iigu ahaa labadayda waalid oo raadayn aad iyo aad qalbigayga ku yeeshay run ahaantii waxay ahaayeen laba waalid oo diinta aad bay u jeclaayeen hooyo iyadu salaada guriga ku oogi jirtay xataa sunnayaasha kadalika aabana dhaqan buu lahaa markuu yimaado uu guriga yimaado uu fadhiisanay kitaab uu soo qaadanay wax walba marka la bilaabayo waxa uu leeyahay meel laga bilaabo sidee ayay ugu dhalatay Cusmaan inuu sameeyo codadka culimada kale taqliidka waxa igu beeray oo markii igu horeysay ay ahayd horta macallinkii quraanka xifdiga ee bilaabay markuu quraanka xifdiga ee bilaabay waxa uu sameyn jiray wuxuu soo qaadi jiray Sheekh Khaliil Xusari dadna wuxuu sameyn jiray raadiyo uu soo qaadi jiray cajalad buu noo galin jiray cajaladaas oo quraanka ku celinaysa aayadii ama basmalada 3 jeer ku celinayso marka wuxuu oran jiray ninka sida uu akhriyo mooyaane sheekha ninka quraanka dhageysan maayo walidaalika alxamdulillaah rabbil caalamiin waxay naga qaadatay jiskii koobaad qurahaatay seen sheekha subaxii ugu soo kala haynay min saaca 7 ilaa 11 ugu soo kala haynay waxay naga qaadatay 5 bilood jiskii koobaad qurahaatay alxamdulillaah anoo soodkii ma sha Allah sheekha la qabsaday ayaa 2000 oo maaragtaan quraankiina dhaqaajiya 2011 waxa Djibouti noogu yimiday Sheekh Jaabir Sheekh Xasan Jaabir uu noo yimiday markaas macallimiintii waxay ka codsadeen inuu maaragtaan markaas 9 sano ka hor baahid marka wuxuu ka codsaday macallimiintii inuu codad noogu akhriyo Sheekh Maxamed Ayuub iyo culimo badan buu noogu akhriyay taasana igu dhalisay inaan markaas soodka aan sii xiiseeyo oo halka ka sii bilaabo waa kan Cusmaan oo ka warbixinaya socdaalkiisii imaatinka Hargeysa iyo waxyaabihii uu kala kulmay alxamdulillaah wallahi horta Hargeysa markaan imiday waxaan kala kulmay dad horta aad u wanaagsan xagga diinta haday tahay xagga dhaqanka haday tahay xagga xijaabka tahay Hargeysa waxaan run ahaantii ku tilmaamaa inay tahay bay'ad xifdiga qofka xifdiga ugu joogsan karo لأنها ما أركيو wax madax qaawan oo maaragtaan wax macaasiya marka qofkii duhurkii wax la dhiganaya oo la xifdinaya maaragtaan horta ma sha Allah xagan waxa kala kulmay arrin aad iyo aad u wanaagsan dad diinta jecel oo quraanka jecel oo ma sha Allah kula garab istaagay quraanka ma sha Allah dad aad iyo aad u wanaagsan ba kala kulmay أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين إن شاء الله شيخ إن شاء الله وكال عذر دارنا يا لكن سبل إن شاء الله وأنسكو داي إن شاء الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن شاء الله فاتحة سينكسو قابسا إن شاء الله. شيخ محمد أيوب نعم wuxuu leeyahay marka insha Allah labadaba insha Allah wax yar baynu ka soo qaadan insha Allah marka waxaynu ku horeysiinayna qiraa'ah insha Allah biidhnillah. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنى تؤفكون.